waxaan leenahay waxyaabaha qisas al-anbiya markaad akhrido ka wada dhex muuqda waxaa ka mid ah waxqabadka bini aadamku midhaheeda inuu ku doono aakhiro laba wax baa jira waxaad qabanaysa inaad adduunka midhihiisa cunto iyo waxaad qabanaysa inaad aakhiro midhihiisa cunto waa laba ra'yo dunida yaalla qof haddaad tiraa waxaa qaba wuxuu ku leeyahay maxaan dheefayaa maxaan anigay soo gelaya maxaan helayaa buu ku weydiinayaa okay dad hunguri wado ma la wadi karaa ummad dhan oo kule maxaan helayaa ambiyadu waxay waday dadka inay ku tidhaahdo aakhira wixiina helaysaan dadku inay aakhira rumaystaan walidaalika nebi waliba wuxuu ku leeyahay dadka markuu la hadlaya matala fi suurati shucaraa wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin buu nebi waliba leeyahy waxana aan wado iyo isbeddelkana raadinayo idinkagama doonayo maa as'alukum calayhi min ajr wax adduuna idinkagama rabo ee in ajriya ilaa cala allah ilaahay un baan ka rabaa inuu i abaal mariyo idan dadka muslixiinta ee dhabta ahi nafciyiin maaha kursiga isaara maxaad u doonaysaa waan idiin soo boobayaa buu ku leeyahay reeruhuna waxay leeyihin kaasi waa nacas oo waxba kama keenin intuu meesha joogay tuuggaa la ammaanaya makaa hebelaha wallahi 2 bilood oo qudhu shaqeeyo reerkii 2 guri u dhisaa lagu leeyahay macnaheedu waxa weeyaan tuugada way isku wada waafaqsanay adna haddaad tagta 2 guri baad dhisi lahayd saynu islaaxayna markaa halkii laga odhan lahaa kaa Soomaaliya 2 bilood buu shaqeeyo tugtu kala jirin weeyaan ummadii uu soo xaday cidiba odhan mayso waxa leeyahay ninkaas waa nin rag oo 2 sanadood uu dawladda u shaqeeyay 2 guri ka dhisay marka waa ammaan tuuganimada ammaana idan dad dhammaantood raba inay adduunka maxaan boobaa oo adduunka igu soo galay taagay ambiyada waxa loo soo diray cagsiga inaanay adduun raadinin adduun may doonaynin waxay leeyahay anagu waxaan wadno kuma rabno wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin waxaan anigu ku yeedhayo wuxuu baan ku doonayaa ajarkayga oo dhan rabbul alamin kan ka rabaa walidaalka saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam cid mushahar u qortay miyaa maqasheen dawlad mushahar siin jirtay miyaa qofnaba ku maqasheen wax mushahar la siin jiray ma jirin nimanka dhan dunida xagga kale u rogay ee bedelay qofna bil wax uma soo xaadirin nabi maxamedna uma soo xaadirin oo maxay qabanayeen waxay qabanayeen ilaahay dartii bay u wadeen kaalay waa dagaalamaysan baa la lahaa hubkooda isaga soo iibsanaya faraskiisa isaga iibsanaya seeftiisa isaga iibsanaya zaadkiisa isaga sita ina dagaalgeeyna waa taagay saxaabi baa nabi maxamed soo raaco la dagaalamay qariimadii la helay ayaa badh la siiyay wuxuu yidhi waa xoolaani waxa la yidhi waa qariimadaynu soo helay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii anugu uma soo raacin xoolo haye maxaad rabtay waxaan rabay buu yidhi halkaa layga mudo aan janno galo anugu jannaan raadinayaa midhar halaa iyo dhowr neef aadhiya maaha waxaan doonaya anigu jannaan raadinaya hadduu run sheegaya buu nebigu yidhi ilaahay waa u rumayn halkii baa laga muday oo shahiid buu noqday aakhirkii yani ninkaa xoolaha la yidhi waanu soo helleho leh anigu xoola uma socdo adduun maan raadinaynin haddaan adduun raadinaya buu leeyahay adhigayga ma iska raacan lahaa idan ambiyadu dhaqankay wadeen waxa weeyaan kan walidalik nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam heshiiskii koowaad ee dowladda islaamiga ku dhalatay yani dowladdii koowaad ee islaamiga jihaadkumay dhalanin jihaadka waa lagu difaacay waana lagu ballaadhiyey dowladdii islaamiga koowaad ee islaamiga ahayd tacaaqud iyo tacaahud bay ku dhalatay dad wax ku heshiiyey baycat alcaqaba athaniya saxaaba ugu timi nabiga calayhi salaatu wasalaam xajkii carabtii hore xaji jirtay maalintii hore dad yar baa u yimi tii labaad 7 qof baa u yimi 7 qof nabi maxamed heshiis bay la galayaan calayhi salaatu wasalaam inuu soo hijroodo oo madiina yimaado oo islaamnimada halkaa laga faafiyo oo ay dad oo dhan ka difaaci doonaan markaa cajam iyo carabba inay u babacdhigi doonaan markay heshiiska isdhaahdeen la galaa ninkii ugu yaraa raggii meesha marayay ayaa yidhi war barsuga war hadda heshiiskaasi wuxuu keensanayaa nina carab oo dhan idinla dagaalantay mayaa u diyaarteen arrinkaa waxay dhahdeen war wiil yar baa teeskarow nabiga heshiiskaanu la gelayna calayhi salaatu wasalaam way la galeen
inay naf iyo maalba siday reerkooda iyo carruurtooda iyo dadkooda u ilaalin doonaan maxaanu leenahay bay yidhaahdeen marka haddaanu annagu fulinno wixiina laga rabay oo muslimiinta ilaalino oo dowladda islaamiga dhisno oo cayn ka noqono naf iyo nafiisba u hurro maxaanu leenahay nebigu ma ku yidhi aniga dabaday baa madaxda noqonaysaan madaxweynaha igu xiga idinka ahaanaya ama wasiirraan idin siinaya maya muxuu ku yidhi lakum uljanna buu yidhi haddaad fulisaan qadiyadaasi oo aynu guulaysanno janna leediin buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam heshiiskii saasay ku galeen baycat alcaqaba athaniya lakum uljanna bay ku go'aansatay go-aankii kaasuu ahaa ma difaaceen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haa wixii qurayshi dagaal soo qaaday dhammaantood waa difaaceen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la dagaal galeen naf iyo nafiisba waa u hureen bal ee markii xoolaha badan la helay qaswatu xunayn iyo meelaha ansaar xoolihii badnaa lama siine kuwii iminka soo islaamay diinta la jeclaysiinaya la siiyey idinka nebi maxamed baa idin raacayaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyago idan xoolamay ahayn islaaxa waxay u rabeen diinta inay dhisaan waxay u rabeen dowladnimada inay dhisaan waxay u rabeen dunida inay wax ka bedelaan waxay u rabeen may ahayn inay xoolo helaan waxay ahayd inay dadku islaaxo iyaguna ajarkooda ay aakhiro helaan